الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغني ودرسيكي تضباط أو كميدة دروس امتحانان أو تلقلنا بشهر رمضان درسيغو maanta wuxuu ku saabsan yahay waxyaabahan soonka waxa u dhimaynin waxa kamid ah waxyaabahan soonka waxa u dhimaynin faman naama wa huwa saa'imun qofka haduu seexdo asoo sooman kadib uu janaabo waxa weeye soonkiisa ma fasahadayo soonkiisu waa saxiix wakadalika waxa kamid ah man ajnaba laylan thumma asbaha saa'iman qofkii habeenkii janaabo kadibna waaga uu bariyo asoonan qabaysanin janaabada ka qabaysanin ama xaasa u tago ama asoo hurdi riyaha uga imaato marka janaabada qofkaasi asna soonkiisu waa saxiix wala qadaa calayhi inda al-jamhuur culimadu waxay leeyihiin wax lagu leeyahay qallana laga rabo marka saaciyuu marka ku soomayaa qofkaasi Aishana oo salama waxa laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu waaga u bari jiray fajarka asoo marka janaabo qabo xaaskiisa u tagay kadibna uu qabaysan jiray nabiguna uu soomi jiray saayuu ku soomi jiray nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa kamid ah waxyaabaha soonkan waxa u dhimaynay leeyihiin culimadu taqbiilu zawj wa muasharatuha qofka inuu xaaskiisa dhunkado uu baashaaliyo laakiin hadii aamin laga yahay inayaan biyo ka imaanaynin qofka nabiga sallallahu alayhi wa sallam Aisha waxay ka warisan inay tiri Aisha waxa laga wariyay kaana yuqabbiluni wa huwa saa'im nabiga ayaa dhunka jiray asoo sooman iyo anoo sooman laakiin nabigu wuxuu ahaa qofkii ugu hanasha badan naftiisa ayuu ahaa kadalika aydan saxaabada kamida ayaa su'aalay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku dhahay qofka saa'imka ah xaaskiisa ma dhunkan karaa nabiga wuxuu ku dhahay sal haadihi oo marka uu u jeedo Salama nabiga agtiisa taagneed ayuu ku dhahay Salama weydi way warantay waxay tiri nabiga ayaa arinkaas uu sameeyaa oo uu dhankada xaasaskiisa asoo sooman saxaabiga marka wuxuu dhahay rasuulka Allah dambigaagii hore iyo kii dambe waa la dhaafay maadaama adiga dambigaaga hore kii dambe la dhaafay anaga soonkeena ama hoosha wax u dhima nabiga wuxuu ku dhahay amma wallahi inni la atqaakum lillah ilaa baan ku dhaartay anigu waxaan ahay midka idin ku cabsi badan alle agtiininka idin ku cabsi badan ayaan ahay Jaabir waxa laga wariyay Umar bin Khattab radiyallahu anhu inuu dhahay maalin ayaan waxaan dareemay waas ayaan dareemay iyo yar farxad baan dareemay kadibna anoo sooman wuxuu dhahay ayaan waxaan dhunkada xaaskayga markaan dhunkada ayuu wuxuu dhahay waxaan u tagay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan ku dhahay laqad sana'tu al-yawma amran 'aziman rasuulka Allah maanta waxaan sameeyay arin weyn ayaan sameeyay nabiga wuxuu dhahay maxaad sameysay wuxuu dhahay waxaan dhunkaday xaaskayga anoo sooman nabiga wuxuu ku dhahay araayta law tamaddalta min al-maa ka waran hadii aad biyo ku luqluqato adoo sooman wuxuu dhahay soonka waxa uma dhimhayaa ayuu dhahay Umar kadib nabigu wuxuu dhahay sidaan buu la mid yahay arrinkaad sameysay waxba dhimalaha xadiidku waa saxiix Abu Daawud baa soo saaray Ahmed waxa weeye xadiis saxiix weeye xadiidkaasi albaanina uu saxiixay waxa kamid ah marka arrinkaasi marka waxay leeyihiin culimadu waxba dhimalaha way kala qaadaan waxay leeyihiin qofka haduu dhalinyar yahay waa inuu iska ilaaliyo hawshaasi uu og yahay inuunan iscelin karin ama qofka waayeelka ah dadka waaweyn waxba dhimalaha ay leeyihiin marka culimada almuhim hadii aad ogtahay inaad iscelinaynin hawshaasi waa inaad ka dheeraato si soonkaaga uu kaga fasahaadin waxa weeye hadii aad ogtahay inaad iscelin karin waa inaad kor aad isku ilaaliso oodan hawsha u dhawaanin waxa kamid ah waxyaabaha marka soonka uu waxba dib u keenaynin inaad isqaboojiso biyo aad isku shubto nabiga sallallahu alayhi wa sallam saxaabada waxay sheegeen inuu biyo isku shubay kuleel dartii jire inuu biyo isku shubo isqaboojiyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa dhib malaha marka qofku inuu isqaboojiyo labada kelimba nis hore iyo nis damba waxa culeys malaha waxa kamid ah al-madmadatu wal istinshaq luqluqa iyo sandaarsiga qofkaas oo ku xeel dheeraanaynin luqluqan kara una sandaarsan kara markuu weysisanayo وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ku xeel dheeraw sandaarsiga inaad tahay qof sooman maahan hadii aad sooman tahay
waxba dhib ma laha markaasi ilaa an takuuna saa'iman haddii aad sooman tahay lama rabo marka inaad ku xeel dheeraato sandaarsiga waa inaad iska ilaaliso biyaha si ayaan kugu tegin falaa ba'sa bilmadmadati lisaa'im walow fii gayri wudu xitaa waxay leeyihiin culimadu haddii uu qofka markaa uu iska luqluqan hayo uu salaad markaa uu tukan rabin ama weysaysanaynin uu iska luqluqan karaa waxbana dhib ma laha soonkiisana waxa uma dhimhayo waxyaabaha yar haddii markaasi afka biyo ay ku haraan kadib uu saa ku liqo waxaa weeye hadduu kas u liqo waxaa weeye soonkiisa wuu burhayaa ama haddii ay asoon dareensananaysaa ugu tagaan waxba dhib ma laha waxaa ka mid cuntada in la dhadhamiyo qofta afuraadka karinayso dumarka gabdhaha waxaa weeye haddii ay markaa u baahato way dhadhamin kartaa laakiin shardi waa inayan laqin weeye inay laqin oo iska ilaaliso weeye cabdullahi ibnu cabaas ayaana hawsha laga soo naqliyay wuxuu dhahay dhib malaha qofka hadduu dhadhamiyo cunada markaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay raxmatullahi tacaala caleyh wadawqu dacaami yukrahu ligayri xaaja cuntada in la dhadhamiyo waa la koohde baahi la-aan ama baahi haddii ay jirto waxba dhib malaha waxay lamid tahay luqluqa qofka oo luqluqday ambaysaan bay lamid tahay waxaa ka mid ah xijaamada qofka hadduu istoobo nabiga sala allahu alay wasalam saxaabiga la dhaho cabdullahi ibnu cabaas ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalam ixtajama wahuwa saa'imun wuxuu leeyahy nabiga ayaa istoobay asoo sooman xadiid kale marka waxaa jiraa dhihi afdara alxaajimu walmaxjuum qofka istoobay iyo midka toobay way afureen haddii hawsha u dhowaadaan xadiidkan marka mansuuq weeye waxaanan nasakhay xadiidka kani ixtajama wahuwa saa'imun uu warinayo cabdullahi ibnu cabaas culimada say qarinayaan culimo badan ayaana ku tagay jumhuur waxay leeyihin abu xaniifa maalik shaafici iyo keyrkooda waxay leeyihin xijaamada qofka hadduu istoobo soonkiisa waxba dhib uma keenayso qofka tooba iyo qofka la toobaba soonka waxba dhib soonkooda waa saxiix arrinkaa waxaa dhahay cabdullahi ibnu cabaas cabdullahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu mascuud anas bin maalik abu saciidin alkhudri iyo daa'ifo salafka ka mid ah ayaa hawshaa markaa qabin waxba dhib ma laha qofka hadduu istoobo soonkiisu waa saxiix waxaa ka mid waxyaabaha soonka waxba dhib u keenaynin qofka hadduu indhakuusho iyo waxyaabaha dhiibka carafka haddaad ismariso waxba soonka uma dhimahayo waxaa ka mid ah cadayga waa la sunneeyo waa sunno qofka saa'imka waxaa weeye marka inuu cadaydo ama bacdu culamaa waxay leeyihiin shaaficiyada xanaabilada gelinka dambe haddii la gaaro waxaa weeye qofka inuu cadaydo ma aha waa inuunan cadayanin almuhim nusuustana say cadaynayso waxaa weeye waxba dhib inayan lahayn ood inaad cadayan karto waxaa kale bilmunaasaba burushka la isticmaalo oo lagu cadaydo waxay leeyihiin culimadu fa innahu yajuusu isticmaal wuu bannaan yahay in la isticmaalo qofka saa'imka ah hadduu markaa aamin ka yahay inuunan waxba gudihiisa uunan gaaraynin ama uu laqaynin waxba dhib ma laha ama haddii uu og yahay ama wax uu ku tago wax ka mid a intuu cadayanhayo burushka ku cadayanhayo waxaa weeye soonkiisu waa halis markaasi haddaad is og tahay inuu waxba kugu tegaynin intaad cadayanayso waxba dhib ma laha marka inahaas iyo wax lamid ah waxaa ka mid ah candhufta waxba dhib ma laha soonka waxba uma dhimayso waxay ka hadlaan culimada xaaqada ayay ka hadlaan waxay leeyihiin afka hadday kusoo dhacdo dib u liqo qofku waxaa weeye soonkiisa wuu burayaa ama hadday afka kusoo dhicin ay gudaha ku jirto ood dib aad u sii celiso waxba dhib ma laha bay leeyihiin culimadu inahaas ayaan dhihi lahaa wallahu aclam